madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa soo gaaray magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta waxaana garoonka diyaaradaha qaybta VIP-da ku qaabilay safiirka Somaliland ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta Ambassador Basha Cawil iyo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland oo hore ugu sugnaa magaalada Dubai iyo xubno ka tirsan jaaliyadda Somaliland ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ku dhaqan waxaana markii madashaasi soo gaadheen wafdigan uu gaarwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaanuna madashaasi kula kulanay safiirka Somaliland ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta Ambassador Basha Cawil safiirka Somaliland ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in wafdiga Somaliland ee hogaaminaya madaxweyne Siilaanyo ay u kicitimi doonaan magaalada Abu Dhabi ee caasimadda dalka Isutaga Imaaraadka Carabta